السلام عليكم daawadayaal soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka halkan bukaan deeqin kaga soo gudbino mowduucan waxaan ku eegi doonaa maxaan loo siinin biyo qofka dhaawaca ah ee dhiig baxaya ama qofka qaliinka laga soo bixiyay laba arin ayaa aan isku soo koobi doonaa sababta aan loo siinin biyo oo aan afka biyo looga siinin qofka dhiig baxaya ee dhaawaca saaidka ah oo gaaray iyo qofka la qalaba arinta koobaad qofka dhiig baxaya hadii la siiyo biyo waxa dhici karta in qofkaasi xaaladiisu ay tahay xaalad halis ah isla markaana oo si degdeg ah oo ugu baahdo in qaliin loo sameeyo markaana hadii biyo fara badan la siiyo oo calooshiisu ay buuxsanto sababi doonaan biyahaasi in qofkaasi uu matago isla markaana wixii gudihiisa calooshiisa ku jiray ee banaanka imaadaan marka la suuxiyo isla markaana ay galaan sanbabada oo sanbabadiisa ay ka buuxsamaan wixii calooshiisa ku jiray isla markaana sanbabadaasi ay awoodi waayaan qofkaasi in uu sii noolaado ama uu sii neefsado oo hawadii ay qaadan waayaan ama hawadii ay saari waayaan sidaan qofkaasi oxygen uu ku waayo oo nafsiga uu ku gabo qofka suuxiyaha ahna oo san waxba u qaban karin sidoo kale waa la mid qofka qaliinka laga soo saaray isna wuu matagi karaa hadii biyo la siiyo isla markaas oo xaaladiisa ayaa isbedeli doonta arinta labaad ee loogu diidan yahay qofka dhiig baxaya in biyo la siiyo ama qaliinka ka soo baxay waa qofkaasi dhiig baxaya hadii biyo la siiyo sidaan wada ognahaba dhiigu waa nafaqada jirka oo wax walba uu jirka u baahan yahay ayuu ka helaa ugu horeyn oxygen-ka ayaa ugu muhiimsan iyo inta kale sida sonkortii uu jirku isticmaali lahaa iyo waxyaabihii kale ee la xiriiray sida elementskii kale iyo isbedeladii jirka ku imaanayo kale waxyaabihii sababi lahay sida calciumka potassiumka everything waxay la socdaan dhiigaas marka qofkaasi aadka u dhiig baxay ee dhiigiisii jirka oo aad u yaraaday isla markaana aan haysan dhiig ku filan oo jirkiisa uu si wanaagsan ugu sii shaqeeyo isla markaana qaybo kamid ah xataa jirkiisa laga yaabo in dareenkoodu uu yaraaday hadii biyo laga siiyo afka waxa dhici doonta in milankii dhiiga oo aad u bato biyihiina jirka laga dhuuqo isla markaana dhiiga qulqulkiisii inta ugu badan ee noqdaan biyo jirka qaybihiisa kala duwanna wax faa'iido ah oo san ka helin markaasna qofka jirkiisa ay ku dhacaan wax lagu magacaabo collapse oo jirku isku dhex yaaco ugu dambeyn qofkaasi uu u geeriyoon karo marka waxa muhiim ah qofka dhiig baxaya ee saaidka dhiig baxaya ama dhaawaca saaidkaahi oo ku dhacay in aan biyo afka laga siinin si looga hortago qofkaasi inuu geeriyoodo ama hadhow dhibaato inay ka soo wajahdo hadii uu u baahdo qaliin sidoo kalena qofka qaliinka ka soo baxay ama la qali rababa iyana lama siiyo biyo ama mararka qaarba qofka qaliinka u socda xataa cunto lama siiyo si looga badbaado in calooshiisa waxa ku jira ay afka soo galaan marka la suuxiyo sidaana qofkaasi uu ugu geeriyoodo waa mahadsantiin